Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Soo dhawaada asxaabta meel baa joogtaan sabtiga kadib kusoo dhawaada. Muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay codskayda ardayda ku xiran sabtiga kadib youtube-ka oo dhahay macnaha ustaada casharadaada macnaha youtube-ka waa ka helnay, waxaan rabnaa inaan akademiga kusoo biirno, marka sidee iskaga diiwaan geli karaa iyadoo la isticmaalayo mobilka. Taasna waa dareemsanahay waaye, maxaa yeelay dadka ugu badan waxay isticmaalaan mobile ayay isticmaalaan, mobilka ayay markaa badanaa isticmaalaan. Qof walba laptop ma haysto, ma fahamtay, ama guri u yaalaa. Marka sidee iskaga diiwaan geli kartaa ayuu ku saabsan yahay videogan totally gebigiiba. Marka waxaa sameynaysaa Chrome-kaaga ama browser-ka isticmaalaysaa galaysaa. Markii aad gashid website-ka ayaa soo booqanaysaa. Website-ka waxa ay ku dhigay description-ka iyo meesha comment-ga aad ku pin gareynaa si aad iskaga diiwaan geliso. Marka website-ka waa kana, koorsooyin badan diyaar ah oo basic forex-ka, intermediate-ka, advanced-ka, risk management-ga, waxyaabo badan ka heleysaan, fahamtay. Xataa signals waa ka heleysaan oo qaybta signals-ka hadaa gashid, tusaale ahaan aad dooratid signals aad ku dhufatid, waxaad heleysaa free signals iyo VIP signals. Marka join aad taabanaysaa, isku markii aad ku biiraysaa. VIP signals-ka $15 waaye. Join haddaad taabatid hore uga biiraysaa, ma fahamtay. Signal-ka hore group-ka waa ku biiraysaa. Marka anagana ma quseedataa maanta waxaana quseeyaa sidee aad iskaga diiwaan gali kartaa koorsooyinka aan bixino, ma fahamtay. Koorsooyinkeena marka horta akademigan wuxuu ka mid yahay akademiga ugu horeeyay waaye oo markaa forex-ka af Soomaali ku bara dadka. Waxaa la aasaasay 2016 markii ugu horeysay oo la aasaasay website-kan, laakiin marka hore forex iyo waxaas looga dhigi jirin, ma fahamtay. Marka sidee markaa iskaga diiwaan gali kartaa. Marka waa kana koorsada basic-ga, intermediate-ka, advanced. Marka ka tahay aad dooranaysaa. Qof haddaad tahay suuqa ku cusub basic aad dooranaysaa. Haddaad tahay qof intermediate-ka aad dooranaysaa. Haddaad advanced aad rabtid oo qaybta istaraatiijiyadda aad rabtid, advanced-ka aad dooranaysaa. Okay, qofka macnaha ka soo qaad basic forex aad dooratay. Marka sawirka aad ku dhufanaysaa, markaad ku dhuftid hoos wadeeda waxaa arkaysaa description-ka ama faahfaahinta. Fadlan faahfaahinta akhri. Koorsada markaa ku qanacdo, markaa aad maaragtay ogaato in macnaha kugu habboon tahay, kadib isdiiwaan geli. Koorsada waxay ku saabsan tahay cidda loogu talagalay iska akhri. Koorsadan waxaa ugu talagalnay qofka bilowga ku cusub forex-ka oo aan weli macluumaad ku filan ka haysan guud ahaan waxa uu yahay forex iyo qaabka uu shaqeeyo, sida looga faa'iido, sida loogu khasaari karo, cidda ku lugta leh ee ka shaqeysa suuqa forex, waxyaabaha saameeya suuqa sarifka iyo wixii la mid ah. Marka qoraalkaas baa akhrinaysaa, casharada waa kuwana aad ku qaadan kartid, ma fahamtay. Marka qaabkee lacagta u bixinaysaa, qaabkee macluumaadka u gelinaysaa. Marka hore waxaa ku dhufanaysaa, waxaad dooranaysaa meesha ay ku qoran tahay add to cart ayaa ku dhufanaysaa. Ugu horeyn talaabta koowaad aad qaadaysa marka aad diiwaan gali rabtid, add to cart ayaa taabanaysaa. Markii aad taabatid, step-ka labaad waxaa waaye check out ayaa sii dooranaysaa. Step-ka labaad waxaa waaye check out ayaa dooranaysaa. Check out ayaa sii taabanaysaa adoo wax kala sameyn, ma fahamtay. Check out ayaa hore ka taabanaysaa. Markuu horeysa add to cart ayaa leedahay, kadibna check out taabanaysaa. Wuxuu keenayaa qaybta macnaha lacag bixinta iyo macluumaadkaaga. Halkan waxaad qoraysaa magacaaga oo saddexan. Okay, halkan waxaad gelinaysaa email-kaaga. Halkan waxaad gelinaysaa lambarkaaga.
tusaale ahaan lambarka hartaa gelinaysaa, halkaa waxaa qoraysaa postal codeka, street addresska, iska dhahana warshadaha road, marka macluumaadka soo buuxi fadlan, city magaalada joogtid ama Muqdisho, state gobolka Banaadir aa gelinaysaa, country wadankaa joogtid, Soomaaliya haddii aa Yurub joogtid oo wadankaa joogtid aa qoraysaa, ma fahanti. marka halkan waxaa qoraysaa order note-ka, waxaa iska dhahaysaa waxaa hartaa iskaga qoraysaa, basic forex aa iskaga qori kartaa, ma fahanti. wax macnaha waxaa hartaa qoraysaa. Okay, marka basic forex marka haddii aad rabtid inaad tusaale ahaan 2 bil aad isku qaadatid, meeshaan balaaska taabanaysaa, 2 bil $60 ay noqonaysaa, ma fahanti. marka laakiin haddii aad tusaale ahaan aad rabto 1 bil, minuska taabanaysaa, 1 bil ay noqonaysaa, ma fahanti. $30 waa bishii. Koorsadaana sida faahfaahinteeda ku qoran waxaa waaye basic 2 bil ay soconaysaa, ardayga bil, labadaas bilna waxaa bixinayaa $30. marka 2 bil ka bacdi lacag dambe oo bixinaya malaha, intermediate-ka u gudbaya. intermediate-ka ayadana $50 waa bishii, waxayna soconaysaa 2 bil. labadaas bil markuu dhammeeyo advanced-ka u gudbaya. advanced-ka bishii $70 waa. 70kaas macnaha 2 bil ay soconaysaa, $140 waa labadaas bil. kadib waxaa usii gudmaya qof risk management-ga. risk management-ga asa 1 bil waaye, $90 waa bishii, ma fahanti. kaasna waa kaas. intaas markaa qaadatid forex adoo dhameeyey aad suuqa galaysaa. marka hore usii socono, marka halkan waa qaybta lacag bixinta. marka 2 nooc waa dadka, qofna wuxuu isticmaalaa dalkuu joogaa EVC, Zaad iyo Sahal oo isticmaalaa, qofna wuxuu isticmaalaa Mastercard. haddii Mastercard aad isticmaalayso waxaad dooranaysaa PayPal aad dooranaysaa, meeshaas aad dooranaysaa. haddii aad lacagta EVC ku bixinaysid ama Zaad ama Sahal ama Taaj ama xawaalad Taaj aad kusoo diraysid, waxaad dooranaysaa optionka labaad oo ah, marka optionka labaad markaad dooratid confirm order aad leedahay, kadibna waxaad leedahay place order aad leedahay. Okay, waxuu ku leeyahay marka receipt ayaa helaysaa, warqadda receipt-ka screenshot aad ka qaadan kartaa, ama waxaa waaye waa qaabkii macnaha waxay caddeynaysaa in aad isdiiwaan gelisay, xogtaada la helay. Thank you aa lagu dhahay Mustafa Yuusuf Xuseen, we received your order. dalabkaaga waa helnay, wuuna soo gaaray. order ID-ga xilliga aa orderka samaysay, total lacagta lagaa rabo $30 waa. marka qaybtaana ku keenayaa, qaybta waa qaabka lacagta u bixi lahayd. marka EVC plus haddii aad lacagta u bixinayso qaabkaas raacaysaa, Zaad haddii aad ku bixinayso qaabkaas, Sahal hadaa ku bixinayso qaabkaas, Taaj Money hadaa ku bixinayso qaabkaas. adi akhri insha Allah. caawimaad u baahan tahay lambaradaas la soo xiriiraysaa, ma fahamtay. marka halkan waa maaragtay order detail, course name, basic forex, quantity inta aad gadatay hal waaye, 1 bil camal. price-ka lacagta maaragta lagaa rabo $30 waa waxaas. iyo qaybtan customer details-ka, magacaaga, email-ka aad gelisay, lambarkaaga, postcode, wixii aad qortay xogtaada halkaa kaa soo muuqan doono. waa maaragtay confirmation. marka adiga lacagtii waxaa sameynaysaa EVC plus ahaan aad kusoo diraysaa ama Zaad. marka qaabkaas aad usoo diraysaa, ma fahamtay. marka meeshaas aad maraysa lacagta inaad dirtaa bilaabaysaa, waxaad tegaysaa qaybta lacagta laga diro. EVC haddii isticmaashid waxaa leedahay dig 712. lambarka meesha ku qoran waxaa waaye 0617 04 okay, marka dig waxaad dhahaysaa $30.
marka sidaas. Marka waxaa gashanaysaa hadhow marka biinkaaga gashanaysaa oo lacagta markaa soo dirtid aad qaabka u dirtid biinkaaga gashanaysaa. Tusaale ahaan biinkaaga whatever wuxuu ahaado saasay lacagta nagu soo gaaraysaa. Kadibna waxaa lagu soo dirayaa email, gmailkaaga galaysaa, macnaha waxaa lagu soo dirayaa linkiga oo casharada ay yaalaan ayaa lagu soo fasaxayaa. Markay lacagtiina soo gaarto isku markiiba marka lacagta saan usoo dhacdaba system waaye waxaan automatically email kusoo dhacayo oo xaqiijinaya in lacagtaada la helay oona markaas ay tahay inaad talaabta xigta aad qaadid oo inaad casharadii aad bilowdid markaas aad koorsada aad ka qayb qaadatid aad bilowdid aad la qabsatid. qaabkaas ayaa la isku diiwaan gashaa. Inaad fahamteen ayaan rajeynaya insha Allahu tacaala. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Videoga sii share gareeya walaalayaal. Dad badan oo waxaa jiro oo u baahan inay bartaan cilmigan laakiin meelo u maraan la. Marka sii share gareeya idinkana ka faa'iidaysta. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.